Okay, haddaba waxa loo yaqaano HTML muxuu yahay? HTML waxa loo yaqaanaa muxuu yahay? HTML haddaynu waxa loo soo gaabiyey eegno HTML waxa loo soo gaabiyey Hypertext Markup Language oo waa tan halkan inoogu qoran. Hypertext Markup Language waa standard markup language used to create structure and content for web pages. Haddaynu Soomaali ku sharaxno waa qolfoofka ay ka samaysan yihiin website-yadu. Qolfoofka ay ka samaysan yihiin website-yadu. Tusaale ahaan imika kani waa Instagram website-kiisi weeyaan. So Instagram tusaale ahaan kani waa Instagram-ka website-kiisi weeyaan. Haddaad eegto design-kan ama waxaan aynu arkayno wajahadan aynu arkayno waxay ka samaysan tahay waxa loo yaqaano HTML. Okay, qoraalka HTML baa lagu qoray, buttonada HTML baa lagu sameeyey, sawirkan HTML baa lagu soo geliyey, everything. Formka text box-ka yare la sameeyey waxa lagu soo geliyey, input box-ka waxa lagu soo geliyey waa HTML, bottom-kana HTML baa lagu sameeyey. Marka haddaad aragto HTML weeyaan siduu dhan yahay. HTML waa waxa sidaa u eg marka website-yadana lagu sameeyo. Facebook isaga sidoo kale haddaad eegto qoraalkan HTML baa lagu soo dhigay iyo waxaan oo dhan design-kan waxa lagu sameeyey HTML. So guri haddii la dhisayo imika guri haddaynu tusaale practical bixino guri imika haddii la dhisayo guriga la dhisayo qolfoofka ama structure-ka jaajuurka la saarayo meesha shubka lagu shubayo muxuu ahaayey qolfoofka guriga markaan qurux iyo waxba toona loo samaynin qolfoofka la sameeyo ayaa loo yaqaanaa muxuu ahaayey HTML. Okay, HTML-kaas qolfoofkaas samaysan ayaa wixii kale lagu dhex daraa oo CSS iyo qurxintii lagu sameeyaa, JavaScript iyo shaqadii kale waxyaabihii backend-kii iyo gudihii frontend-kiiba shaqadii qabanayay functionality-ga uu sameynayay lagu daraa waxyaabaha kale la hadho database-kii waxbaa lagu sii xidhaa. HTML-ku markaa isaga oo kooban waa kaas.